Munaasabadan oo ay soo qabanqaabiyeen maamulka jaamacadda Aadan Cadde International University ee lagu soo bandhigayay isla markaana xarigga looga jariyay laabab cusub oo lagu soo kordhiyey kuliyadda caafimaadka qaybta optometriga ee lagu barto cudurrada ku dhaca indhaha ee jaamacadda Aadan Cadde International University ayaa lagu qabtay xarunta jaamacadda Aadan Cadde ee magaalada Muqdisho. Munaasabadda ayaa waxaa ka soo qayb galay maamulka jaamacadda Aadan Cadde, macallimiin, dhakhaatiir, ardayda wax ka barata jaamacadda qaybta optometriga ee lagu barto cudurrada ku dhaca indhaha, waalidiin iyo marti sharaf kale. Qaar ka mid ah ardayda wax ka barata jaamacadda Aadan Cadde qaybta kuliyadda caafimaadka ee lagu barto indhaha ee optometriga ayaa ka warbixiyey muhiimadda qalabkan cusub ee laababka u leeyahay ardayda wax ka barata jaamacadda Aadan Cadde International University. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين waxaa markaasi mahad mudan Allah subxaanahu wa tacaala intaa kadib waxaa markaasi u mahad celinaynaa dhammaan maamulka jaamacadda Aadan Cadde si gaara xafiiska markaasi arrimaha ardayda oo isaga in badan barnaamijkan qayb weyn ka ahaa. Waxaan ku faraxsannahay maanta in laabkii maaragtay optometriga in jaamacadda ay si toos ah inoogu furtay maantana xarka jirkiisii ay ahayd. Runtii waxay markaasi noqonaysaa qayb weyn oo inagu soo korodhay sababtoo ah waxay in badan fursad inoo siinaysaa casharadii ama theorieska aan soo qaadano meel aan ku baraatikeyn karno, sidoo kalena aan u fasaxanahay qalabka yaala in maaragtay aan in badan baraatik ku qaadan karno, in badan xilliyada markaasi aan rabnana aan heli karno in ka duwan markii markaasi banaanka loo baxo oo meel lagu shaqaynayo oo qofkii markaasi hawshiisa ay ku xiran tahay oo in badan ay noqonayso in aad markaas isku ilaaliso. Halkan laakiin fursadeedii ay tahay maaragtay in keliya ardayda jaanis ay u helayaan, sidoo kalena maaragtay dadka ku geedaaman waa jaamacaddana ayaguna ay ka faa'iidaysan doonaan si guud ardada dhigata jaamacadda optometry ahaan in maaragtay laabkan aan helno runtii aad aan ugu faraxsannahay. Wax badanna waa rajaynaynay oo sanado badan jaamacadda waan daba soconay. Maanta in markaas fursadaas ay inoo soo baxdo runtii aad waan markaas ugu faraxsannahay, wax badanna markaas waan ka kororsan doonaa. optometry baashkeeda saddexaad waxay mahad u sugnaatay Ilaahay subxaanahu wa tacaala noo suurtageliyey maanta inaan heerkan soo gaarno, jaamacaddana ay inoo keento qalabkii iyo meesha aan ku baraatikeyn lahayn oo aan hoygii indhaha aan dhihi karno arday weliba wuxuu maanta helay marjac ugu soo laabto ifan haddii maanta dhakhtarka uu soo dhigay ama uu ku soo qaatay cashiradiisa habkii uu sii lahayd refreshionka spherical ahaato concave ama convexba in maanta uu haysto marjac oo uu laabto oo nacaha hoygan ugu imaanayo qaybkiisa practical gaar ahaan ay maanta dib uu soo refreshion uu soo qaatay habkii uu sii lahaa ee taala meel dhakhtarka uu soo wado oona keen cashirkiisa uu ku qaato. qof waliba inuu marjac leeyahay waa asaaska ugu wanaagsan ardayga beeskiisa uu kasoo bilaabno mar haddii uu yahay dhakhtar kana qayb qaadanayo aragga qof bini'aadan ah oo aysan ahayn wax fudud qof waliba aan lagu aamini karin. waxay aad ugu wanaagsan tahay haddii ardayga maanta dhigaha oo keliya wax uu ka haayo waa sidii waxaan dhihi karnaa indhoolo oo kale ficilkana uusan helin wax aad theorygiisa hayso ama falgalkeeda helin waxay kusoo kordhinaysaa bay jirin lagama helayo waddankeena haddii lagu wareego jaamacad arday heerkan ilaa uu sii gudbo ka garab qabanayso. mahad celintaas waxaan siinaynaa alla ka suko jaamacaddeena qaaliga ah ee Aadan Cadde International University. waxaan aad ugu faraxsannahay maanta inaanu nahay dad marjac leh maanta haddii cashir soo qaataan amaba dhakhtar uu wax u soo dhigo meel ay ugu soo laabtaan ayagoon isbitaal aan ku wareegin ama isbitaal aan u lugoyn ay heli karaan hoy ay u soo noqdaan oo baraatikadooda ay ka qaataan dhakhtar diyaar ugu ah wax waliba ay soo qaateen asi practical inuu u siiyo sidii ugu soo qaateen galaaskaasi theory. Ismaaciil Maxamed Maxamuud oo ka mid ah boorka jaamacadda ayaa ka hadlay ahamiyadda laababkan ay u leedahay guud ahaan ardayda Soomaaliyeed, gaar ahaan ardayda wax ka barata kuliyadda caafimaadka qaybta optometriga ee lagu barto cudurrada ku dhaca indhaha. badanay oo u suurtageliyey inay nagala soo qayb galaan xafladan in lagu daafuro laab indhaha doonaan ardada optometriga. jaamacadda markii uu soo daraayo kuliyaddan ani ahaan caafimaad ma baran laakiin weligay kuma fikiri jirin wax la yidhaha optometry ma aqaanin mana fahamsanayn. dhakhaatiirta markay noo keeneen waa kan iskaas garaynay aniga dhaktar indhaha waxaan u aqaanin jiray keliya dhakhtarka ophthalmology-ga medicineka barta
kabacdina soo diyaariya master ku soo diyaariya kabacdi markii aan in badan ka discuss gareynay la sharaxay ayaa waxaan ogaaday inay kulliyadda leedahay caafimaadka qaybtan oo indhaha qayb la yidhaahdo optometry oo indhaha lagu baaro ookiyaalo qofka loo qoro indhihiisa lagu jaagareeyo sida caafimaadka qofka oo meesha laabka ugu barto kale asagana ay leedahay dadka medicine-ka barto iyo dadka laabka barto ay kala duwan yihiin marka optometry-ga dadka barto iyo dadka ophthalmology-ga bartana iyadana waa kala duwan yihiin Dr. Maxamed Khaliif oo ka mid ah dhakhaatiirta Soomaaliyeed aqoonna u leh cudurrada ku dhaca indhaha ayaa ka sheekeeyey qalabkan laababka ah ee lagu soo kordhiyey jaamacadda aadan cadde iyo doorka uu ka qaadan karo tayada iyo aqoonta ardayda jaamacadda aadan cadde. madashaan aan ku daahfurayno laab cusub oo loogu talagalay qaybta indhaha ee jaamacadda ay yeelan doonto qaybtan indhaha kulliyadda optometry-ga waxaa soo bilaabo 2019 waana kulliyadda keliya ee maanta ka jirto geyga Soomaaliyeed oo dhan waxaan u maleynayaa Hargeysa jiri jirtay ayadana waa almost 2 sano ka hor u malaynaysaa kulli koonfurta Soomaaliya oo dhan waa jaamacadda ugu horeysay kulliyaddan bilowday ilaa hadda ma garanayso aadan ugu faraxsanahay inaan waqti fiican soo wada qaadanay maanta waxaan maraynaa marka marxaladii ugu fiicnaa oo ah inay kulliyaddu qaybteeda ay yeelato laab gooniya. Gudoomiyaha jaamacadda aadan cadde Cabdulqaadir Axmed Mahad ayaa ka warbixiyey muhiimadda qalabkan uu u leeyahay iyo dadaalka uu wado maamulka jaamacadda taasi uu ku tayeynayo tayada waxbarashada ardayda Soomaaliyeed ee wax ka barata kulliyadaha kala duwan ee jaamacadda aadan cadde International University. labadooda wada jira Dr. Cali kaligiis oo ku sameeyay guriga Dr. Usman Ali Cabdi oo ku yaal isbitaal Soomaali Suudaanis oo ku shaqeeyo si kulliyadda loo socodsiiyo hay'ad dad khubaro ah oo cilmiga soo bartay ayaa ahaayeen ururna waa leeyihiin waxay noo sheegeen in cilmigan ururku ku maqan yahay socoshadiisa iyo sida u soconayo ana ilaahay ana socodsiin laakiin cilmiga kale cilmigii ay hayeen waxay hayeen oo kala manhajkii hayeen buugagkii hayeen wixii oo dhan ay noo soo dhammaystireen jaamacaddana waan ka barnay kadibna maanta waxay maraysaa mashruucyo afraad in la qabto doctorka iyo labada dhaktarka aad u mahadsan yihiin waxay kaloo noo keeneen in iyaga filligaas ay noo keeneen oo saaxiibo qaali ah oo ardayda kulli dhakhaatiirooda isbitaallada ka wada shaqeeya doctorka waa mahadsan yahay xafiiska public relationka iyo xafiiska dhinka loobin kulliyadda caafimaadka iyagana waa mahadsan yihiin intaas kadib mediaha waan u mahadcelinaynaa tv-ga qarankaana la joogo iyo dimbil production aad ay u mahadsan yihiin intaas kadib waxaan rabnaa waxa aan furnay laab waa ka weyn isbitaal waaye laab waxaa la yidhahdaa meel baraatika lagu qaato la iskaga tago hadafka waa ka weyn yahay kaas in waxaan rabnaa dadka indhaha ka jiran lagu daaweeyo daktar professional oo Dr. Axmed Saacid ama Dr. Axmed Rashiid oo ku soo shaqeeyay cilmigan daktar buuxana ayaa filliga fadhiya laba xarumood oo waaweyn oo waddanka ku taalo ka soo shaqeeyey isbitaal Alexaan iyo isbitaal Jowhar ku yaalo oo samafale la yidhaahdo ayuu ka ahaa daktarka indhaha wuxuu kale ku soo shaqeeyey waddanka Etoobiya beelaadka waddanka Etoobiya doolo wadana Etoobiya iskala qaadna doolo dhinaca Etoobiya oo ku soo shaqeeyay asagana isla cilmigan ama maadadan ama maxay raadaayo dhakhtarka ahaa muddo kadibna waxaan ku soo biirinay uu ka mid yahay hadda tiimka jaamacadda aadan cadde ayuu ka mid yahay keliya arday in baraatikal sii qalabka kan waayo qalabkan waa maani dadka tabaalaysan iyo ardayda jaamacadda dhigato macallimiinta maamulka waxaan rabnaa baaritaan free ah sameyno. Muddooyinkan ayaa maamulka jaamacadda aadan cadde International University waxa ay wadeen dadaallo sare loogu qaadayo
tayada waxbarashada ardayda wax ka barata kulliyadaha kala duwan ee jaamacadda aadan cadde international university muuse cusmaan abtow telefishinka qaranka soomaaliyeed muqdisho